hooyadeeda ma jirteen yaa hooyadeed yaa qof walba fiiri qof walba ma jirteen hadda waan ognahay wiilka adeerka u nahay maanta bleach ka cabtay tiri the only person qof sarma boy hadda qof u soo dhiibay inuu aniga adiga cajalad ugu caayo waan ognahay so please George waxa laga soo bixi bleach ka tiri anaa ku imaaday sariirta ku imaaday anaa message ma soo baray dhegeyso baby dhegeyso waan ognahay laakiin ayada قيس هكذا حطولتي النمعو ما جرتين قيس ما جرتها هكذا حطولتي سدي سياسة فيريا لكن ولا واين وإماري هوستي كالشيء كان واي ويل كان هدوي أماني هدوي عايو ويل كان هذير بان واحد وويل أمانت أنيقا أن إلان مارتي أن عاويو قرب كيس أن قرب أيان مانتا أيان حق ولا inaan caayo oo ayaga dartood cajalad ay u soo dhiibtay asagay dhilla calasay in aan uga jawaabo on la caytamay rabeen laakiin siyaasadda dheelayaan mid ka daran baan aniga aqaanaa siyaasina waanahay fanaanna waanahay dhegeyso waxaan ku dhahay askarina waa tahay waa iloobi baby militarina waa gartay marka mid baan kuu sheegayaa marka waxaan ku leeyahay maadaama hadda aad isku kay duubtay meesha Soomaali meesha uu ka soo bilowday dhibka oo codadkii adiga ay dhageysatay aad ogtahay ayaa rabay inaan sheego waa gartaa Soomaali ma oga dhibka jira wuxuu yahay Soomaali meesha dhibka ka soo bilowday ma oga صح laakiin waxaan rabay meesha ay iloobi la'adahay ay ku gawanayso ee ii daba socoto ee nimco ma jeerteen u daba socoto adduunka ogaadeynay ma jeerteen qabiil ugu nacabtaa weye waalid bay u yihiin ma ayada ma oga waxaan maqli jiray qofka markuu masiirsan yahay waxaan maqli jiray ismoog reemiga inaad taqaanaan mooy maamahadan dhegeysta ismoog udbahay aslaysaa dhegeysiya ismoog udbahay aslaysaa عشان udbaha asal ismooga udbaha asal lama mariyo asal waa taqaanaana mariya qofka waxaan ma waa yaariga mismiya kala yaqaano ayaa garanay heesa waxa ku maqal jiray ismoog aqalkiibay aslaysaa اسمك أقل كذا أصلي أنا أصلي ماشي في معناه ذي أنا تعرفين سادرو thank you ماشي اسمك بيبقى أصلي يساوي أنا قفكي فيري أنا قفكي يقول إيسو بندكتو قيسو فيري ده بيبي ما لنا كذا على قشرة حق بان أولا أنا قبضنا الربو inaan guur ka diiday gabadhaan rabana aniga aan guursado war miyana xaq u lahayn aniga ilaahay waxaan kugu dhaarshay haddaa kelmad dambe ku dar aakhiriyaad ku macafin qayso maqribaad tukanay ku sii jiro dadka u sii saacadiyo sii salaam iyo orkaasina saaran gabadha eedada dhasho hoos geesi assalaamu calaykum marka wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh soo dhawo ogaasho waan dhabe iska daa islaantaas mid baan idin sheegaya markaas dhegeysta gabdhahan nimcad daba socda ee caayayo ee maseersan waxaan u sheegayaa dhegeysta aniga iyo nimco malakumadan baana kala wadaa hadda idin sheegaya caayda aad idinka caayaysaa nimco kuma kala tegayno aniga ikhtiyaar baan leeyahay khasab aniga maaha inaan idinku guursado khasab maaha tol baa la yahay walaal baa la yahay dad maanta waa adduun berri waa aakharo nimco qolol maalin walbo qolol wax looga soo furanayo aniga iyo nimco sabirkeenna wuu idan dhibaa waan ogahay qofka markuu maseersan yahayne waxyaalo badan baa ka suurtooba waxaana dhacay dhegeysta ma xasuusta waddanku ahaa waddan waxaa jiro sharcigiisa
gabadha markay maseersan tahay haddii ay qof disho waxaa lagu leeyahay gabadhan way maseersaneen loo yaraa loo qabanayaa qofka maseersan waxba lagama qoro may fahanteen marka inaad soo gebagabeeyaan rabaa dhegeysta gabdhahan maseersan ee majeerteen iyo ogaadeen iyo kolba qabiil soo sheega laleeyahay ee kharashka lagu bixinayo war dhilla calasay sida carruurtayda oga adkahay baan dhilla calasay horta oga adkahay sahra dayacan ninkeeda wuxuu dhahaa saan waaye nimco saan weeye halkaas bay suubisaa way tumataa saas u dhaa waxyaalo badan buu keenaa laakiin runtii waxaa weeye sahra dayacanna waxaa u sheegayaa arrintii gabadhii nimca isku kay duubtay dhibaatada meeshay ka bilaabato dhan codadkii wixii dhan ana hayo in aan caawa qarxiyaan rabay laakiin nimca inay gob tahay saa ku ogaada soomaali maxameday way isku kay duubtay way ceshatay halkii baan ooga haray laakiin sahra dayacan baan rabaa inaan u sheegay dhegeyso dhilla calisay gabadha asaga uu qabo magaalada uu jooga carruurtiisa waxaa lagu xantaa gabadha iyo wiilasha asaga uu dhalay oo uu sheegto waxaa lagu xantaa xuseen xaaji gatani la yidhaahdaa ayaa ka shaqaystay waana dareemi karaayo naagtiisa asagaa waqti u waayo wey ka roga laba saar halkaa ku xor sahra dayacan baa marka haddaa usoo gudbayaa sahra dayacane mid aan kuu sheego ninkaada adiga hadda isku noqoteen maalin la kala tagtaan maalin la isku soo noqotaan adiga carruurtaada ama asaga kaa dhala mise xuseen xaaji gata ha kaa dhalo waxa aad la degilaadihiin baa hadda kuu sheegayaa carruurtaada lacagta lagu koriyey ee loo keeno dhegeyso waa lacag isbaaro loo dhigtay oo dahabshiil taaj iyo kambaniyada waaweyn laga soo qaaday oo baad lagu soo qaaday wey ayaa carruurtaada horta loo keenay war ma beentay baa soomaali maxamed haddii ay beentay tahay idinkaa tolkaygee idinka ayaa ceeshan karo